بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. walaalyaal, waxaan marka hore kula dardaarmayaa nafteedii iyo naftiinaba ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa, in aynu ilaahay subxaanahu watacaalaa ka baqno, weliba aynu kaga baqno meel kasta oo aynu joogno, weliba cabsidiisa dhabta ah. waayo ilaahay subxaanahu watacaalaa dadka mu'miniinta ah wuxuu kula dardaarmay in ay ilaahay subxaanahu watacaalaa ay ka baqaan cabsidiisa dhabta ah. oo ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih. war kuwii iimaanka laga helayow oo xaqa rumeeyeyow, ilaahay subxaanahu watacaalaa ka baqa, cabsidiisa dhabta ahna kaga baqa. marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa in ilaahay subxaanahu watacaalaa lagaga baqo cabsidiisa dhabta ah. marka xigta, waxaa rabaa maanta inaan ka hadlo 10 dardaaran ee ilaahay subxaanahu watacaalaa qur-aankiisa uu ku sheegay fi suurati al-ancaam, suuradda la yidhaahdo suuratu al-ancaam. dardaaranka koowaad waxaa weeyaan, ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu yidhi: allaa tushrikuu bihi shay-a, ay laa tushrikuu bihi shay-a, ha uu shariig yeelina ilaahay subxaanahu watacaalaa, waxba ha uu shariig yeelina, yacni cibaadadiisa waxba ha uu shariig yeelina, cid kale hala wadaajinina. shirkigana waxaa la yidhaahdaa shay in la leexiyo oo cibaadada ka mid ah, shay cibaadada ka mid ah in la leexiyo, loona leexiyo ilaahay subxaanahu watacaalaa keyrkiisa in loo leexiyo, oo waxaa la yidhahdaa shirkiga. marka waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaalaa cibaadadiisa in cid kale loo leexiyo waxa weeyaan waa shirki, mana banaana. shirkiga wuxuu ka mid yahay macsida ugu weyn ayuu ka mid yahay, waana waxaa weeyaan wuxuuna ka mid yahay dembiyada waaweyn mid ka mid ah weeye. waa dembiga ugu weyn ayuu ka mid yahay. shirkiga waa dembiga keliya ee aan la dhaafin. ilaahay subxaanahu watacaalaana wuxuu yidhi: ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. ilaahay subxaanahu watacaalaa ma dhaafo in loo shariig yeelo isaga, balse waa uu dhaafaa wixii arrinkaasi ka sokeeya, wuxuuna u dhaafaa qofkuu doono. yacni arrinka ah shirkiga, arrinka hadduu yahay mid aan shirki ahayn, ilaahay subxaanahu watacaalaa wuu u dhaafayaa. ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu nooga waramay jannadu in laga xarimay dadka mushrikiinta ah
hoygoodana uu yahay naarta. ilaahi subxaanahu wa tacaalana wuxuu yidhi man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaaru wamaa lildaalimiina min ansaar. qofkii ilaahi subxaanahu wa tacaala u sharig yeela wuxuu ka xarimay jannadiisa, hoygiisina wuxuu ahaanayaa naarta jaxiima. wamaa lildaalimiina min ansaar. yacni qofkii ilaahi subxaanahu wa tacaala u sharig yeela waa qof daalim ah oo daalimiinta ka mid ah. kuwa daalimiinta ahna wax gargaar ah ma lahan. dardaaranka labaad ee ilaahi subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay fii suurati al-ancaam waxaa weeye labada waalid in ixsaan loo sameeyo, wanaag loo sameeyo, baari loo noqdo. wabilwaalidayni ixsaanaa, yacni wa axsinuu bilwaalidayni ixsaanaa. wanaajiya labada waalid wanaag. labada waalid xaqa ay leeyihiinna waa xaq weyn. sidaa daraaddeed ilaahi subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku dardaarmay in waxaa weeyaan la wanaajiyo. aayadda tan iyo suurado kaleba waxaa ka mid ah qowluhu tacaalaa wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi insaanka waxaan u dardaarannay, yacni bini aadanka waxaan u dardaarannay labadiisa waalid inuu yacni wanaajiyo. sidoo kale saxaabiga la yidhaahdo anas bin maalik allah kala noqday wuxuu yidhi su-ila annabiyu sala allahu calayhi wasalam can ilkabaa'ir. nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa la weydiiyey dunuubta waaweyn. nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi al-ishraaku billaah. dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah in ilaahi subxaanahu wa tacaalaa loo shariig yeelo cid aan ilaahi subxaanahu wa tacaala ahayn, in waxaa weeyaan cibaadadiisa loogu shariig yeelo, lala wadaago. sidoo kale dunuubta waaweyn iyo dembiyada waaweyn waxaa ka mid ah cuquuqul waalideyn, yacni labada waalid in caaq lagu noqdo, lagu caasiyoobo, waxaa weeyaan ayaa ka mid ah dembiyada waaweyn. sidoo kale dembiyada waaweyn waxaa ka mid ah wa qatlu nafs, naf in la dilo. nafta dilid waa la dilaa, laakiin xaq baa lagu dilaa, xaqdaro laguma dilo. marka naftan la sheegayo waxaa weeyaan tii xaqdarada lagu dilayay. marka taa waxaa weeyaan waa dembi. qof aan waxba samayn in la iska dilo, gardaro cad lagu dilo, waa dembi. sidoo kale waxaa ka mid ah dunuubta waaweyn shahaadatu zuur, markhaati beenaalaha. waxaan jirin buu waxaa weeyaan markhaati ka noqonaya, uusan ogeyn. wax been ah buu markhaati ka noqonaya. dardaaranka saddexaad ee ilaahi subxaanahu wa tacaalaa uu qur-aankiisa ku sheegay fii suurati al-ancaam waxaa weeye walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin naxnu narsuqukum wa iyaahum. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ha dilina caruurtiina gaajo iyo faqri, ha u dilina. yacni gaajo iyo faqri
idin haysta dartii ha u dilina. naxnu narsuqukum wa iyaahum, annaga ayaa idin arsaaqayna idinka iyo iyagaba. dardaaranka afaraad waxaa weeye ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi fi suurati alancaam walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan, ha u dhowaanina waxyaabaha xun, macaasida xun ha u dhowaanina. macaasida xunna waxaa ka mid ah sida zinada oo kale ayaa ka mid ah. marka wuxuu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala macaasida xun ha u dhowaanina, maa dahara minha wamaa batan, macaasida teeda muuqata iyo teeda qarsoon. yacni macaasidu waxaa weeyaan midna waa muuqataa midna waa qarsoon tahayoo qofka si qarsoodi buu u sameeyaa. midna waxaa weeyaan waa muuqataayoo caadi baa loo arkayaa. marka teeda muuqata iyo teeda qarsoonba ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ha u dhowaanina. dardaaranka shanaad ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq, ha dilina naftaasoo ilaahi subxaanahu watacaala uu xarimay dilkeeda, yacni in la dilo uu xarimay ilaa bilxaq, xaqeeda mooyaane. yacni haddii ay kasbato dil marka waa la dili karaa, laakiin haddii aysan kasban nafta waxaa weeyaan la iskama dili karo mala yacni. dardaaranka lixaad ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan xataa yabluga ashuddah, ha u dhowaanina agoonta xoolahooda ilaa bilatii hiya axsan, tii mooyaane oo ah midda ugu wanaagsan. xataa yabluga ashuddah, ilaa uu agoonka uu ka gaaro ashuddah, yacni ilaa uu ka xoogsado, yacni qof adag uu ka noqdo. agoonku xoolihiisa looma dhowaan karo, ilaa haddii loo dhowaanayana waxaa weeyaan waxaa la rabaa in agoonka xoolihiisa markii loo dhowaanayo in ay tahay qaab wanaagsan oo shareecadana ay ogashahay in loogu dhowaado. mathalan waxaa weeye meel baa loo dhigayaa, waa la wanaajinayaa, waa loo xafidayaa, waxbaa loogu qabanayaa oo isaga anfacaya. laakiin lama rabo in yacni waxaa weeye agoonta xoolahooda la yska cuno, malayacni la yskaga cuno, gardara la yskaga cuno. taa iyadaa waxaa weeyaan lama ogola. agoonku waxaa weeye laba mid baa xoolihiisa lagu wareejin karaa. waa midda koowaade waxaa weeye waa inuu horta qaangaar yahay agoonka. qofka agoonka ah waa inuu qaangaar yahay oo caqli leeyahay. midda labaad waxaa weeye agoonku waa inuu yahay mid yacni hantida iyo xoolaha aabihiisu ka dhintay mid yacni xafidaya oo waxaa weeye meel wanaagsan ku bixinaya waa inuu yahay. laakiin haddii uu yahay nin
waxaa weeyaan muqayil ah, sigaar iyo qaad iyo balaayo waxa weeyaan lacagtii ku khasaaranaya hadduu yahay, waxaa weeyaan qofka isaga ah looma dhiibayo, waa loo haynayaa, waa loo xafidayaa. dardaaranka toddobaad waxaa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa awfu lkayla waalmiisaana bilqisti. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi dhammaystira oo oofiya halbeega wax lagu cabiro iyo miisaanka wax lagu cabiro, waxaa weeye oofiya oo dhammaystira si cadaalad ah. dardaaranka sideedaad waxaa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa. yacni haddii aad hadlaysaan cadaalad sameeya oo wax cadaalada yacni ku hadla, walow kaana daa qurbaa, haba ahaado midkaas ha u hadlaysaan, haba ahaado qaraabo mid ugu dhow. waxaa weeye qaraabo ayaa tihiin darteed in yacni cadaalad aad uga tagtid lama rabo. tolka weeye dartii inaad yacni uga tagtid cadaaladda lama rabo. ama tolka ha ahaado, ama walaalka ha ahaado, ama qaraabada ha ahaado, wuxuu doona ahaado, waxaa la rabaa si cadaalad ah inaad ku hadashid. markhaati baa tahay, si cadaalad waa inaad ku markhaati furtaa. maxkamad baa fadhisaa, waxaa laga rabaa si cadaalad ah inaad ku kala xukuntid dadka. waayahay dardaaranka sagaalaad waxaa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wabicahdi illaahi awfuu, wabicahdi illaahi awfuu. balanka ilaahay oofiya. qofka hadduu waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala ballan uu la galo waa inuu ballanta oofiyaa. inuu ballanta ka baxo maahan. sidoo kale bini aadamka haddii aad ballan la gashidna ballanta waa inaad oofisaa. wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulaa. dardaaranka tobanaad ee ugu dambeeya waxaa weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi midkan kan ah waa waddadeydii toosnayd. waddada tan ah waa waddadeedii toosnayd ee fattabicuuhu raaca. waddadan toosan raaca. walaa tattabicu subula, ha raacina waddooyinka kale ee badan ee dhowrka waddo ah. subul waxaa weeyaan jididka yaryarka ah baa waxaa la yidhaahdaa subul. jididka yaryarka ah ee badan yacni ha raacraacina. oo haddii la raaco maxaa dhacaya? fatafaraqa bikum can sabiilih. oo markaa yacni aad kala tagtaan oo firqo aad ka noqotaan oo waddadiisii saxdaheed waad ka leexanaysaa markaas. haddii yacni waddooyinka badan aad qaadaan. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waddadeedan tan ah waa waddo toosan ee raaca. waddadaasna waxaa weeye alkitaabu wassunna. kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala oo qur-aanka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam. waddada toosan ee saxda ah waa taa weeye. waddada aan toosnayn ee walaa tattabicu subula uu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa weeye taas waxaa weeye waddo baatil weeye, waddo sax maahan. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa.
intaas baa rabay, tobankaas dardaaran baa rabay in aan idinla wadaago. Qof kasta oo videogan daawada ama dhegeysta dee waxaan ka codsanayaa in uu subscribe saaro, like-na saaro. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.